إلهي أهان عدلا قفك كعية لعن الله من أيقظها بوي فتنة قفك كعية إلهي هل عدنو مليان أورجانيزيشن كان لو صدر عدد كصوماليات دليرة الصومالية تينيج كنا هل لقد دايان لأن هاي قفكي مركا وينو ودايا وحيابها نيجاتيف كا ما دركت بورنينج كاي دح وريق السوشيال ميديا وإنه وحفي عن استعمالها وضاوضا وحو ضاوانا يقفكو سي هل يروح حمانا لا شاقي حمانتي بقى إيا لوود قوريا وبقل وناق أولا قبتنا وحبا لقما سو قاضي marka dadka waa in xagga wanaagsan qaybta wanaagsan ha shaqaysan leh Soomaalidu horumarka hadii la rabo aan horumarno Soomaalihaan markaan isku duubno qabiil inaan iska dhaafno oon eegno Soomaalinimadu naga weynaato marka aasaasan u lahaa وقرن دبلي قاسو هدي لك لقارن يا قيس قرحين سودو مقعدو صدحن يقول واحد من غور على كده كوادن دباتده قبيلته leedahay sida loo horjeey karo بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamed xuseen ibraahim qabyaalada marka laga hadlayo horta waa wax ilaahay waa shicaar ama waa aqoonsi uu ilaahay bini aadanka uu sheegay oo uu yiri litaarafu isku garta waxa loo sameeyay in la isku garto oo uu noqdo mid la isku garta laakiin uu noqon mid lagu colaytamo oo lagu xifaaltamo inuu noqon marka qabyaaladu sideedaba dadka u adeegsada xagga xun dee way xumaanaysaa wallo la dhaafiyo dawo hadii la dhaafiyo xuduudeeda way xumaanaysaa qofkii dhimasho u keenaysaa qabyaalada xuduudeeda hadii la dhaafiyana ayaduna waxay keentaa fadqalalo ama dib badan ayay keentaa saas darteed hadii sida wanaagsan loo adeegsado waa wax wanaagsan hadii la xumeeyana waa wax un weeyaan qabyaalada yareynteedu iyo fikirka dadka aqoon-yahanka ah elite-ka ah wax bartay in ay ummadda ku soo kordhiyaan wax laga guuri karo waxa ay rabaan in laga guuro laakiin inay soo kordhiyaan ma aha wax ka sii daran qofku marka uu aqoon-yahan yahay waxa fiican marka hore inuu horta isagu ka dhisnaado wixii uu ahaa dhaqankiisa inuu ka dhisnaado xeerkiisa inuu ka dhisnaado ummadiisa taariikhda ay leedahay iyo waxa ay leedahay oo dhan inuu ka dhisnaado kadib marka waxa uu soo bartay waxa uu ka mid dhalinaya bini aadanka dibkiisa waxaad aragtaa in laga batagay qiyamkii bini aadanimo in qabyaalada ay noqoto wax la adeegsado markii la doono laga orkacsado marka qofku dantiisu ay gaadho inuu soo kiciyo maaragtaan unugyada dhinsan ee qabyaalada rasuulkuna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ilaahay ahaan cadalo qofka kiciya la'ana allah man ayqadaha buu fitnada qofka kiciya ilaahay hal cadano marka qabyaaladu waxay kicisaa badana fitnada ayay kicisaa laakiin marka aad u adeegsanaysid sidii sharciga iyo sifadii sharciga iyo sifadii cilmiyeed marka aad u adeegsato ma aha ma xuma qofka wax adeegsanaya ee dadka qabyaalada ku dhibaya ee wax ku kicinaya ee aadamaha looga ba'ay waxa wanaagsan waxa qabta dadkiisa qabta inta badana dadka Soomaalidu haddaanan iska qaban dadka fitnada kicinaya dadka ku garaadka ku awrkacsanaya inta garaadka gaaban wararka la shiilin warar la soo shiilo oo BBC-da tiri maxay VOA-da warar la shiilo caalami oo la shiilo oo laga cabsado xogtooda hadhowto lama lagaaga daba iman baa la arki jiray laakiin imika waxaad arkaysaa warar suuqa intoo laga qaado
dabadeetana lagu xabeebsanayaba oo ninka marka uu warramaya aad moodayso nin waxaan inuu xaqiiq yahay baa rubto haddaad ka daba tagtana aad ka arkayso inuu ninkani isaga uun fiyus ka raadsanayo marka waxaan odhan lahaa qabyaaladda in la baabiyo waxay u baahan tahay dabargoynta qabyaaladdu waxay u baahan tahay waqti dheer bay u baahan tahay oo lagu laray horumarinta bulshada horumarinta dhaqanka horumarinta dhaqaalaha iyadoo intaa oo dhan laga shaqaynayo midnimaynta ummadda in la mideeyo oo ummadda midnimadeeda laga shaqeeyo oo tafaraaruqa ummadda aan lagu talax tegin taasaa keenaysa in marka dambe aan uga guurno qabyaaladii in laga guuro oo loo guuro amba ka fiican taa hore aan haysannay oo ah tii horena in laga tegin tan horumarka uu keenayna aan qaadanno wax aan ka shaqaynana uu noqdo wax dadka wax u tari karaa ayaa lagaga gudbi karaa baan isleeyahay midnimada waxaa loo xoojin karaa in dadku ay ku laamaan qiyamkii inay dadku ku laamaan dhaqankii aan lahayn dadkeennu dad iska hadal uun lahaa ma ahayn hadalka fiirsi baan lahayn ninka Soomaaliyeed marka uu hadlayo wuxuu ahaa nin u tababaran waxa uu xaq u leeyahay inuu difaacdo waxa uu xaq darrada ku hayana inuu iska difaaco ay ahayd marka midnimada bulshooyinka alla noolahay iyo midnimada Soomaaliyeedba xoojinteedu waxay ku xidhan tahay in kala foqoqnaanta iyo qabaa'ilka iyo maaragtaanay hadallada xanafta ah in la iska daayo in midnimada la xoojiyo oo Ilaahay sida uu sheegay waxa uu yiri midnimada had iyo jeer wax lagu gaadhaa midnimada ay had iyo jeer wax lagu gaadhaa xoojinta midnimaduna waxay u baahan tahay in bulshadu wixii dib u keenaya iska qabato wixii wanaag u keenayana ay ka wanaaga u wadana ay taageeraan oo yidhaahiin wanaag buu noo wadaa boqolkiiba inta ninkaasi wanaag buu rabaa laakiin hadda waxa farabadatay hal yar oo xumaana la sheegi xumaantiiba ka iyaa loo wada guuraya boqol wanaag oo la qabtayna waxba lagama soo qaaday marka dadka waa in xagga wanaagsan qaybta wanaagsan ha shaqaysaan leh magacayga saddexan waa Anyaale Maxamed Muuse oo ku magac dheer Food Cadde oo ku dhowahay page-kan ku jiro Waarif TV aadaan ugu maasantiin qabyaaladdu horta qabyaaladdu laba macno ay leedahay waa qabiil iyo qabyaalad qabiilku horta qof kasta qabiil uu ka dhashay laakiin qabiilka laguma sii fogaado marka qabyaaladdu dhibaato weyn bay leedahay marka dhibaatada ay leedahay waxa jira iminka kiyara qofkii yaraa soo kacay wuxuu soo kacaya qabiil in hebel baan ina kalaanahay waxa ma fiicno marka I think iminka anihan markaan eego social media wax qabiil iyo waxa baa la sheergareynaya I think content-ki sameeyaan waxay macna soo kordhinayso ma jiro marka social media kiyara soo kacay kiyara shinjirka iyo waxa la barayaa Soomaalidu horumarka hadii la rabo aan horumarno Soomaalihaan markaan isku duubno qabiil inaan iska dhaafno oon eegno Soomaalinimadu naga weynaato marka aasaasan u lahaa magacayga saddexan waa Xirsi Dharaar Jaamac sida qabyaaladda hadii aan dhowr qodob aan ka taabto qabyaaladda horta shay aad u fiican maaho maadaama ay dadkii ay baabi'inaysa ay bahdilaysa hadda waqtigan la joogana waa tan dadka dabargoysay marka waxaan dhihi lahaa dhalinyaradii imika in kastay aad ugu bateen qabaa'ilada waqtigan hadda socdana waa qabyaaladu ma fiicno qabyaaladu kulli in badan lagama sheekeyn karo qabyaalada dad badan oo ka soo sheekeeyeen qabyaalada daayoon baa leeyahay marka lamana deyn karo kaliya waxa loogu talagalo in la isku tooydo qabyaalada ma aha in maad aragtay la sii isticmaalo aad loo sii isticmaalo gunta loogu dhadhaco marka arrinka laga gudbaan leenahay hadii aan soo koobno qodobada inaan sii dheeraynana ma rabno waxaan oran lahayn qofku saddex wax baa jiro waxaad daawatid iyo waxaad akhrisatid iyo waxaad dhageysatid saameyn bay kugu yeeshaan marka qofkii uu soo kacaya waxaan buu daawanayaa dad waxa jiro organization la soo aasaasaa jiro qabyaalada ka sheekeynayo Soomaalida lagu baabi'inayo maadaama ay dalag fiican iyo dhul fiican ay haystaan maadaama shidaal fiican khayraad dabiici ah haystaan waxyaabo dahaba madcabaha laga hadlayo maadaama ay aad u fiican yihiin dhanka maskaxaana waa dad maskaxdii laga dilay marka ma fiicnaan leenahay qolyahan organization-ka loo soo diray dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed teenage-kana hal laga daayaan leenahay qofkii marka waa inuu uu daayaa waxyaabahan negative-ka ee ma aragtay boarding-ka ay dhex wareegay social media waa inuu wax fiican isticmaalaa u daawada wuxuu daawanayo qofku saameyn bay ku leeyihiin wuxuu dhageysanayo qofku saameyn bay ku leeyihiin bulshada ku hareeraysan saameyn bay ku leeyihiin wuxuu akhrisanayna saameyn bay ku leeyihiin marka taaman leenahay midnimaduna waxaan leenahay kaliya qabyaalada uma soo dhex galayso ha lagu dadaalo midnimada iyo qadiyada Soomaaliyeed inta waa naga badan hal la joojiyo qabyaalada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh